gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jeere ayaa gaaray magaalada Qoriley ee ka tirsan gobolka Sool waxa uu gaarsiiyay deeq lacageed oo loogu talagalay dadka danyarta oo ay saameysay abaarihii kala duwanaa ee soo maray wadanka iyo xaaladda abaareed ee imika ka jirta gobolka Sool. magaalada Qoriley ayaa ku sumtanayd magaalooyinkii sida gaarka ugu hagarbaxay xilliga musharaxa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo sida gaarka codka u wada siiyay odayaasha iyo waayeelka magaalada Qoriley oo halka ka hadlay ayaa dhabaan habaliya u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. sidoo kale odayaasha iyo waayeelku waxay ka hadleen baahiyaha ka jira magaalada Qoriley ee dhanka arrimaha bulshada ugu la baaqay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inuu wax ka qabto il gaara ku soo eego magaalada Qoriley. ayaduna waxa weeye Qoriley waa shindaraadka dalka weeye annagu hadda geedka muuqda waxa soo jooga Puntland shaqa kuma darsano waxaanu u jeednaa Soomaaliland codka iyagu waa sida ay khayr baynu iska rajeenaynaa. dhinaca Soomaaliland waa tagnay odayaal wafti baan ku tagnay anoo gudoomiyaha magaalada Qoriley baa odayaashaas waan la socday waxa weeyaan barasaabku waa mahadsan yahay wuxuu naga ballan qaaday wixii ugu horeeya ee uu hawsha tixgeliyo inay noqoto halkan isaguna waa mahadsan yahay 100% waxaan kaloo leenahay xagga Soomaaliland xafiiska looga codeynayo kulmiye aniga gacanta ku hayay waxa weeye meesha ugu badan ee codku uga soo baxo Soomaaliland bay ahayd xafiiska Qoriley ana gudoomiye ka ahaa waa codka ugu badan ee kulmiye uga soo baxa waxaan xaq u leenahay tixgelin kasta oo gobolka timaado in ayna soo gaadho baan xaq u leenahay maadaama aanu codkii ugu badnaa uu Qoriley ka soo baxay wadani waxba codihima uma soo bixin dhammaan wixii kulmiye loo codeyna hadda ma garateen dhammaan dadku waa ogyahay xafiiskana ana gacanta ku hayay mar walbana waa la shaqay. ugu dambeyntii waxa hadalka soo afmeeray gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jeere isagoo la ballan qaaday dhanka kala duwan ee ku gadaaban magaalada Qoriley ee dhanka arrimaha bulshada inuu wax ka qaban doono oo uu gaarsiin doono madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kulana noqon doono xukuumadda. sidoo kale waxa uu sheegay gudoomiye Cabdiqani Maxamuud Jeere in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu si gaar ah uga warhayo magaalada Qoriley inay ahayd magaalooyinkii sida gaarka ugu codeeyay. runtii waxaan mahad u celinayaa guddiga abaaraha heer qaran ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Sayli uu yahay gudoomiye guddigaasi runtii wax badan bay ka qabatay waxay u soo dhiibtay booyad biyo ah booyadaas waxay u dhaamisay tuulooyinka abaaruhu tuulooyinka bilaanta ku jirto dhan ee la saacanood ku dhow dhan dadka Ilaahay buu wax gaarsiin kara waxay soo bixisay deeq biyo ah oo dhawaan guddida abaaruhu ay keenteen oo 50 booyadooda Qoriley biyaha loo keenay sababtoo ah Ilaahay baad ka soo furtay idinka in booyad biyo ah oo deeq loo soo bixiyay idin keeno guddida abaaruhu mahad celinaya waxaan kaloo mahad celinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo runtii og Qoriley wuu og yahay madaxweynuhu si fiican baad markii doorasho socotay oo doorateen cod fiicanna waad siiseen reer Qoriley halkan ay ahayd baan maalinay meeshii maalintii doorashada ka dhacaysay tirada yareeda halka ka codsaha iska yaraatay oo dadku diiwaangelinta aad ay u gelin kulmiye wada codeysan taana dawladdu way idin ogtahay iyadana waa mahad celinayaa waxaan idinka codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba inaad cid kastoo deeq idin wada aad soo dhaweysaan oo si wacan aad ula shaqeysaan waxyaabaha idinka kala jiidashada manfaacadka dhexdiina maanta kale waa laga tanaasulaya wixii wanaagsan baa la qaataa gobonnimo halkan lagu yaqaanay soo dhaweyn baa lagu yaqaanay waxa weeye dad la dhaqan baa lagu yaqaanay wixii bayna maanta muujisaan